taliyaasha ciidamada kala duwan halka fadhiya bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan bismillaahir rahmaanir rahiim sidii qaranka Soomaaliland asxaabta qaranka shacabweynaha reer Soomaaliland dhammaantiin ka warqabtaan waxaanu galay doorashadaasoo si nabadgelyo ku bilaabatay si nabadgelyo ku dhamaatay waxa weeye maaha markaa in nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland aynu mantaqadan ugu xeeran badankeeda kaga duwanahay maaha in la carqaladeeyo maaha in dib loo geysto waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida kala duwan waxay u leeyihiin ama u dabran yihiin ilaalinta iyo nabadgelyada shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay markaa xisbigu doonahaado asxaabta qaranka ciidii nabadgelyo darro samaysa waxa weeye waxaan leeyahay yaan la iska horkeenin shacabka iyo ciidamada qalabka sida kala duwan waayo nabadgelyo wanaagsan ayaynu haysanaa sida tani ugu dhawaajiyay cidda waxaan leeyahay ragga siyaasiyiinta ama cidda fadqala la wada waxa weeye cid walba sharciga ka sareeya ciddii sharciga baalmarta sharciga laga talabaad laga qaadaya waxaan leeyahay caawa sida ka warqabtaan magaalooyinka Burco Hargeysa iyo Ceergaabo inta rabshadaha ka dhacay maaha mid loo baahan yahay iyadoo natiijadiiba soo bixin maaha in la fadqalalo iyo nabadgelyo darro iyo dhibaato shacabka la geliyo waxaan halkan soo jeedinayaa war shacabka yaa la majra habaabinin oo nabadgelyo darro lagu abuurin ciddii nabadgelyo darrada ku abuurta ama cid kastoo isku dayda in nabadgelyo darrada waxa weeye nabadgelyo darro markay timaado dhib baa imanaysa war shacabka dhibka laga daayo iyo hawlaha la gelinayo waxa ay arrintaas saameynaysaa nabadgelyo darrada ciddii ficil af ama waxaan jirin faafisa warar propaganda oo aan jirin waxa weeye sharciga qabanaya mid waxa uu taalaa anagu taagelinayno abni baanu ka hadlanaa waxaanu taliyaashii qaranka u imaan nabadgelyada waxaan soo jeedinayaan ku boorinaya shacabweynaha reer Soomaaliland in ay ka warsugaan kumishiga doorashooyinka qaranka ciddii wax tabanaysa waxaan bayaaminayaa ciddii nabadgelyada wax u dhinta in aanay ciidamadu ay gacan adag oo sharciya ay marin doonaan ciddu doonaha ahaado waxaan asxaabta qaranka ku celinayaa mar labaad in ammaanka la ilaaliyo oo shacabka fidna la dhaxgelin ayaan u sheegayaa cidda hadda falalkan dhaqaajisana waxa weeye war shacabka dhibaatada ka daayaan mudleenay shacabka fidnada ka daayaan mudleenahay nabadgelyadu waa qaali nabadgelyadu waa qaali waxaan kaga baxayaa oo leeyahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay istajiya war ciidamadiina rabash hawlaanina ciidamadu cadow badan baa jira mid gudeed baa jira oo ka faa'iideysan kara waxa jira dad kale oo cadow ah oo caalamka oo dhan jira waxaan leeyahay la idinka faa'iideysanin arrimaha noocaas ha laga daayo boobka meeladaha burburinta hantida ee wadooyinka gubidda waxyaalaha soo dhami waa dambi dad badan baa la qabtay dadka rabshadaha lagu qabtayna sharciga la horgeyn doonaa waxaan ku celcelinayaa dhawaaq dheer leeyahay war ammaanka la ilaaliyo ciidamada la shaqeeyo ciddii fal nabadgelyo darro abuurta ama ku kacda ciidamada qalabka sida kala duwan waxay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan waxaana la horgeyn doonaa sharciga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.